waxaa geeriyooday Khalid bin Waliid radiyallahu canhu. Maanta oo kale, sanadii 21 Hijriga, waxaa geeriyooday Sayfullahi al-Masluul, Khalid bin Waliid, hogaamiyihii ugu fiicnaa ee soo maray taariikhda basharka. Wuxuu noloshiisa badankeeda ku bixiyay jihaadka iyo furashada dowladihii ugu awoodda sarreeyay xilligiisa, oo kala ahaa Furska iyo Ruumaanka. Dagaaladii uu hogaamiyey waxaa ka mid ah dagaaladii uu ka qayb galay intuu nebigu u noolaa, Fatxu Maka iyo Ghaswatu Mu'ta. Sidoo kale, ghaswadii Uxud wuxuu door weyn ka qaatay in muslimiinta lagu jabiyo intuusan soo islaamin ka hor. Sidoo kale, wuxuu ka qayb qaatay Ghaswatul Khandaq. Wuxuu soo islaamay Safar sanadii 8 Hijriga, isaga iyo Camr bin al-Caas iyo Cuthmaan bin Talxa. Markuu imaaday Madiina, wuxuu Abubakar uga sheekeeyay riyo uu arkay. Wuxuu dhahay, waxaan arkay sidii inaan ku jiro magaalo ciriiri ah oo abaar ah. Markaasaan u soo baxay magaalo waasic ah oo cagaaran. Abubakar wuxuu ku dhahay, hanuunka uu Ilaahay kugu soo hadeeyay Islaamka waaye, ciriiriga aad ku jirtayna waa shirkiga. Khalid bin Waliid wuxuu caan ku ahaa geesinimadiisa iyo tactikada dagaal uu isticmaali jiray. Tactikada dagaal uu ku isticmaalay Ghaswatu Mu'ta markuu soo laabtay kadib, nebiga wuxuu u bixiyay Sayfullahi al-Masluul. Nebiga markuu dhintay kadib, wuxuu gacan weyn ka qaatay la dagaalanka riddada iyo kuwii nebinimada sheegtay. Uu ka mid ahaa Tulayxa bin Khuwaylid iyo Musaylamatul Kadaab. Wuxuu ku dhintay Xims, Suuriya. Markuu dhintay kadib, muslimiinta aad ayay ugu murugoodeen. Cumar bin Khataab wuxuu ahaa qofkii ugu murugada badnaa ee la murugooday geerida Khalid. Khalid wuxuu soo hogaamiyey ku dhawaad 100 dagaal, midna ma laga guuleysan, taas oo ka dhigtay hogaamiyihii ugu khatarsanaa ee soo maray caalamka.